dibadbax ballaaran oo ka dhacay maanta gudaha magaalada Boorama ayaa waxa isaga hor yimiday qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama iyo ciidamada biliiska isku horimaadkani ayaa waxa uu sababay dhaawac dadweynahani gadoodsan ayaa waxa ay diidanayeen xariga loo geysanayay fanaanka caanka ee Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hillaac oo maalmii ugu dambeeyay ku sugnaa gudaha magaalada Boorama walow aan la garanayn sababta loo xirayo fanaanka isla markaana ciidamada biliiska ay ugu taxaabayaan xabsiga waxa ka warbixisay xilliga la soo weeraray isla markaana ay ciidamada biliisku u soo daateen xaafada waxana warbaahinta la hadashay isla markaana ka warbixisay saacada ay ciidamadu soo dooneen fanaanka waalidka dhalay Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hillaac waxayna tilmaamtay xilliga la nagu bilaabay daakirkii bay ahayd ilaa xilligana wala nahaystaa ciidan bana soo weeraray dhabaxa jood been xalay kulkii yimaadeen صح imikana ciid ay in ka badan bay ahay hay faamigiisu baa joognay cid kale ma joog صح xabadii la riday in baa nagu soo yaacay soo gidaarkaas madaxa ku dhintay jiiday soo diray xidhan askariya صح jiidayeen inantii bay qaadeen oo gaariga ku riteen inankii kale qaadeen oo gaariga ku riteen adiga ka riday la dhaceen bud hay qayladii mujaarkii nagu soo yaacay jaarkiina waa kan xabad mujaar la isku xaamiyay hay dadaya dadka ay daawanaya waxaan ka codsanayaa dalka waan u dhalanay halkaan joogno ku dhashay ya macay waxuma galabsanin ya deehalana nabad galiyo alla kama baqayaan ay joog nafta ka baxaysa weeyaan ilaahay kama baqayaan joog nafta ka tagta ma sakaraadaan waa musuqa waa khaayanimada waa dhigacafka ay yihiin dadka wada haliilayaan geesta kale maray ku hurgalay telefishinka caalamiga ee bulsho si uu wax uga weydiiyo maamulka gobolka kan degmada Boorama iyo taliyaha qaybta gobolka Awdal banaanbaxyadani sababay dhaawaca isla markaana ay isaga hor yimaadeen shacabka iyo ciidamada biliiska ee gobolka Awdal ayayna u suurtagelin waa Shucayb Maxamed kaan Shucaybiga TV-ga caalamiga ee bulsho magaalada